bishan markay ay kala baranto habeenka niska ay tahay waxaa dhacda arrin weyn arrin cajiib ah xagga rabbi ka timi tabaaraka wa tacaala maxay tahay arrintaas wuxuu nabigu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh habeenka bisha shacbaan ay kala barantoy nis noqoto habeenkaas allah baa wuxuu daalacdaa addoommadiisa dhammaantood intuu abuurtay oo dhan buu daalacdaa markuu daalacda kadibna wuxuu u dembi dhaafaa dhammaantood dembigooda waa saamaxaa ilaa 2 ruux mooye ruux mushrik ah oo ilaahay iyo addoommadiisa ka dhaxaysiiyey wixii ilaahay gooni u lahaa xaqii alla gooni u lahaa oo cibaadadiisa ah oo tawxiidkiisa oo keliyeelidiisa ah ninkii wadaajin galay oo ilaahay iyo addoommadiisa ka dhaxaysiiyey kaasi ilaahay marna u dembi dhaafi maayo waa tan qur-aanku tilmaamayo inna allaha laa yakfiru an yushraka bih alla ma dhaafo in isaga iyo addoommadiisa wax la wadaajiyo oo laysugu daro ilaahay khalqigiisa waxa uu goonida ah inaad u leexiso waa dembi ilaahay laga galo ka ugu weyn wey adduunkana wuxuu keenayaa inaan dembigaaga haba yaraatee la saamixin aakharana wuxuu keenayaa inay jannadu xaaraan kaa tahay naarna aad ku waarayso saas daraaddeed mushrik ilaahay habeenkaa u dembi dhaafi maayo ka labaadeen loo dembi dhaafayni waxa weeyaan waa mushaaxin waa cuqdadlow waa xiqdile ruux xiqdi iyo nacayb qalbiga ugu haya ruux muslim ah asagana loo dhaafi maayo waa cajiib mushrika garanaya kan uurka ka jiran ee muslimiinta colaadda u haya ama xiqdiga u haya ama u xanaaqsan maxaa lagu maagay sababtu wax weeyaan u fiirso meesha la geeyey isaga iyo mushrigii baa isgarab dhigay waa la fogeeyey waxaan meesha ka fahmaynaa ilaahay tabaaraka wa tacaala dembiyada laga galo kuwa ugu waaweyn waxaa ka mida inuu qalbigaagu jiran yahay oo u jiran yahay dadka ilaahay addoommadiisa ee mu'miniinta ee muslimiinta ah waad nacab tahay xiqdi baad u haysaa xasad baa kugu jira nacayb baa kugu jira waa wixii ilaahay diiday tabaaraka wa tacaala meesha keliyana ma ahe munaasabaad fara badan xiqdiga iyo caloolxumada kugu jirteed muslimka u hayso waxay keenaysaa meelo fara badan inaad ilaahay naxariistiisa ka qaddo dembi dhaafkiisa ka qaddo halis u gasho rabbi cadaabkiisa iyo cuquubadiisa tabaaraka wa tacaala waxaa nabigeenna ka sugan salawaatu rabbi wasalaamu calayh inuu yidhi maalin kasta oo khamiisa iyo maalin kastaoo isniin ah acmaasha addoommada kor loo qaadaa ilaahay baa acmaasha loo geeyaa markaasaa ilaahay wuxuu u dembi dhaafaa cid kastoo addoommadiisa ka mida ilaa cid mushrigoo ilaahay iyo addoommadiisa xaqii alle ka dhaxaysiiyey mooye yaa kale nin kalaas isagana aan loo dhaafayninoo maalinkaasi isagana aan khamiista iyo jumcada marka acmaasha la qaaday aan loo dembi dhaafaynin waa kee wuxuu nabigu sal lay wasalam waa ruuxa isaga iyo walaalkiisa muslimka ay ka dhaxaysa shaxnaa xiqdi uu ka dhaxeeyo alla wuxuu leeyahay tabaaraka wa tacaala labadan xiqdiga iyo xumaanta isu haya dibdhiga arrinkooda u kaadiya ilaa ay ka soo heshiiyaan meelo badan baad qadi marka lianna ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu ugu jecel yahay acmaasha wuxuu ugu jecel yahay waxaa ka mida in qalbigaagu saliim yahay qalbigaagu fayow yahay qalbigaagu xaadhan yahay dadka muslimiinta wada jecesha xumaan aadan qalbiga ugu haynin qalbigaagu inuu u fayow yahay nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh ayaa waxaa la weydiiyey dadka yaa ugu fadli badan rasuul ilaahayow
wuxuu nabigu sallallahu alayhi wasallam ruux kasto oo mahmuumul qalbi asaduqul lisan qalbigiisu mahmuum yahay carabkiisuna run badan yahay waxay yiraahdeen garanay midka carabkiisu run badan yahay qalbigiisa mahmuuma maxaa laga wadaa maana fahmin oo cadde wuxuu nabigu sallallahu alayhi wasallam waxa laga wadaa huwa at-taqiyyun naqiy wa midka qalbigiisa alla ka cabsi ku jiro qalbigiisuna daahir yahay oo nadiif yahay واسي وذا النبي صلى الله عليه وسلم وحيد وامدك قلبي جيسا أن دنبي كتشرين قرد الرأي حد قدب الظلم كتشرين غلي خيانة أين كتشرين حسد وسن قلبي جيسا كتشرين كاسا إلهي أضامدا إلهي أقفض لبضان أقونا تشعليه ساس تردد هذا قلبك حمان كوهيس حالدها سي وقتيدا سي مناسب كقيمها بدن ليس سامحة ولا غير ريبي يا واد ka hadhaysa waa inaad marka qalbigaaga nadiifiso oo aad daahiriso oo aad ka dhigto qalbi saliim oo fayow nabigeena salawaatu rabbi wa salaamu alayhi saddex bari oo isku xigtay buu saxaabadiisa oo la fadhiyo wuxuu ku yiri waxa idin soo gali doona nin ahlu jannah saddexdii bari ba hal nin baa soo galay ninkii haday daba galeen saxaabadu ay fiiriyeen warninkan saddex bari janno looga marqaati kacay xaalkiisu muxuu ah haday raadiyeen waxa cadaatay ninkaas cibaado badan oo ragga la dheer yahay ma jirin soom badan iyo salaad badan iyo cibaadaad oo saxaabada kale la dheer yahay ma soo bixin laakiin maxaa la helay waxa la helay oo uu sheegay hal habeen ama seexanin anigoo qalbigayga ruux muslima xumaan ugu haya waa midda uu meesha ku gaadhay waay sidaas daraadeed haddaad ilaahay dambi dhaafkiisa rabto iyo acmaashaada in meel fiican la geeyo qalbigaaga ka shaqeeyo hagaaji xiqdiga iyo xasadka iyo xumaanta iska saaro iska nadiif Allah tabaaraka wa ta'ala mu'miniinta markuu tilmaamay saddex qaybood buu ka dhigay fi suurati al-hashr qaar waa muhaajiriin qaarna waa ansaar qaarna waa qolada saddexaad oo tilmaantan la siiyo walladina jaa'u min ba'dihim labada gadaashooda kuwa yimid ee muuminiinta damba ah ee dib ka yimid yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iiman waxay dhahayaan rabbiga noo dambi dhaaf annaga iyo walaalahanagi nooga horeeyay iimaanka noo dambi dhaaf wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu qalbiga naga allah xiqdiha gelini xiqdi aanu hayno dadka muuminiinta ilaahu qalbiga hanaga gelini marka xiqdi haduu qalbigaaga haysto dib kugu filani waa ku hayaa dib in kugu filani waa ku haysataa aimada salafka ridwaanullaahi calayhim qaar kamida waxay ku fasireen xadiidkaas uu nabigu sallallahu alayhi wasallam habeenka shacbaan ay kala baranto ilaahay waa u dambi dhaafaa adoomadiisa ilaa mushrik iyo mushaahin mooyee aimada salafka qaar kamida waxay ku fasireen mushaahinka waxa laga wadaa waa ninka saxaabada nabiga sallallahu alayhi wasallam uqdada iyo nacaybka u haya sida imaam awzaa'i alayhi rahmatullah ku fasiray waxaan shaki ku jirin xiqdiga kugu jira dadka aad u hayso sida ay ilaahay ugu kala dhow yihiin buu dambigu u kala weyn yahay dad xiqdi iyo xasad iyo nacayb loo qaado waxa ugu daran uguna dambi weyn saxaabadii nabiga sallallahu rabbi wa salaamu alayhi lianna waxay ahaayeen awliyadii ilaahay doortay ummadda nabi maxamed ka xushay saabiqiintii bay ahaayeen ardadii nabi maxamed bay ahaayeen kuwii quraanka iyo sunnadaba lagu amaanay lagu taskiyay bay ahaayeen kuwa markaad xaqdi iyo xasad u qaado shaki ma laha hadaadan gaal ahayn ina dambiile xaqa aad uga fogeynata maayeel ilaahi tabaaraka wa taala quraanka kariimka wuxuu ku sheegay markuu ka hadlay saxaabadii nabiga iyo siday nabiga u garab istaageen u xoojiyeen ay dhinacyaha uga galeen oo diinta u xoojiyeen allah wuxuu yiri tabaaraka wa taala liyaghiidha bihimul kuffar gaalada in lagaga xanaajiyo oo ciil la bado daraadeed buu allah saa u yeelay ninka xanaaqsan ee ciilkii cadhada u haya saxaabadii nabiga sallallahu alayhi wasallam
aayadda waxa laga qaadanayaa inuusan muslim ahayn aymadii salafka qaar kamidana saa u daliishada ridwaanullaahi calayhim sidaas daraadeed saxaabada inaad cuqdo u qaadaay mas'ala sahlan ma aha cuqdada iyo xiqdiga la qaadato ugu culus waay waxa soo raaca aymadii salafka ridwaanullaahi calayhim ardadii saxaabadu taabiciintii kuwii ka dambeeyay aymadii saddexdii qarni culimada muslimiinta ee sunnada u taagan ee diinta faafinaya kuwaasaa ugu daran inaad xiqdi iyo cuqdad u qaado dadka kale muslimiinta guud ahaan ayaguna waa soo galayaan maxaa yeelay nebigu ma kala qaadinta salawaatu rabbi wasalaamu caleyh laakiin way sii kala culus tahay saas daraaddeed xiqdiga shiicada iyo raafidadu cayda ay saxaabadii nebiga caayayaan xiqdiga ay u qabaan colaadda ay u qabaan nacaybka ay u qabaan ayagiyo inta raacsanba shaki ma laha in ay gelayaan xadiidka nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh fayaqfiru lijamiici khalqihi ila limushrikin aw mushaaxin dad ilaahay doortay markaad adiga ku mashquulsho shaqo ka dhigato ya man caada lii waliyan faqad aadantuhu bilxarbi buu alla yidhi tabaaraka wa tacaala awliyadayda ruuxii la collaytama anigaa dagaal u iclaamiyey ha ku talagala dagaalkayga saxaabadii nebiga ninka ku mashquulsan ee laga kari la'yahay dagaal rabbi tabaaraka wa tacaala ayuu ku jiraa nin ilaahay dagaal la galayna shaki ma laha inuusan marnaba raynaynin oo laga adkaanayo oo ilaahay tabaaraka wa tacaala adduuniya aakharaba uu ciqaabahayo cuqubada rabbi iyo cadaabkiisa inuu hal isugu jiro muslimiintu marka ha kaa nabadgaleen qalbigaagana u fur يا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم سلوكو قدام بالله وادنت هذه مصلحة هذه عافيتك سامح والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين هذا علي سنتور دبا دريميسو قرصو دبكاغا عرضا علي ددك ليسك سامح وعافي ألا تحبون أن يغفر الله لكم يا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه مركو كحناقي ننكي مصطح بن أثاثة يا مركو كحناقي وعائشة دتكي كبين أبورتي كقيب قلي وبين تفافيين أبورتك كدبن أويري دب دنب إنانا مصروفين قرابي أهايا إلهي آيات نزودك تبارك وتعالى ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم ورمي إذا انشعلين إن إلهي إذن دافو إذن سامعوا جوابتوا ها وانشعلناها إلهي أدومدي سسامحها عفية قلبك أفرى ونصيحية مسلمين تشعلوا متك قلوا سنة دنبك كلي دنبك يسنع لكن يسقها النعل يا دنبك يأهواذا حمانته lafteeda la naca laakiin shakhsiga muslimka lama naco lamana kahdo lafihiisa waa ruux muslima caasiba ahaad sidaas daraadeed danaha adduunyo dagaalka ku saabsani meel ku geyn maayo xogaa baa idin dhex maray sax haddii shaxnaaga aad u haysa uu yahay ruuxani yani fikirka uu xambaarsan yahay baa wuxuu yahay fikir khariban diin ahaan baad uga hijrooto wuxuu watiya mabdi'iisa khaldan taasi waa mas'alo kale laakiin waxaad u dagaalsantood u xanaaqsantood u nacabtahay waa adduunyo kursi baa idin dhex maray xoolaa idin dhex maray waxoogaa baa idin dhex maray taa maya shaxnaaga noocaasa lama ogola sidaas daraaddeed si aan jaaniskan uga faa'iidaysanno waa habeenadan inugu soo aadan weeye bisha shacbaan inay nis noqoto waa habeenada inugu soo aadan qalbigaaga waqtiga yaree laaban intaad ka shaqaysiiso daahiri iyo nadiifi insha allahu tacaala si ilaahay qalbigaaga u daalacdo kadibna lagugu dambi dhaafo biidni illaahi tabaaraka wa tacaala ood uga mid noqoto dadkaa la saamaxayo habeenkaa biidni